heesta beledweyn waa mid ka mid ah heesaha iyo suugaanta ugu caansan guud ahaan geyiga Soomaalida waxaa heesta curiyay abwaankii weynaa ee baha u naxariistay abwaan Hadraawi waxaana ku luuqeeyay oo codkiisa tolmoon dhagaheena ku culay fanaanka caanka ee Xasan Aadan Samatar Xasan Ganay heesta waxaa la xameeyay Cabdikariin Qaarey qisada heesta abwaan Hadraawi asaga oo ka sheekeynaya sababta curinta heesta caanka ee beledweyn waxa uu yiri kadib kacaankii 21 Oktoobar ee xukunka dalka kula wareegeen ciidamada qalabka sida waxa guud ahaan la amray kooxihii fanka kala duwanaa si ay uga qayb qaataan hanuuninta bulshada iskuul walba waxa la amray inuu magaalo aado annaga waxa naloo diray ayuu yiri abwaan Hadraawi magaalada Baydhabo halka oo aan ku dhignay riwaayado kala duwan balse markii aan ka soo dhamaanay waxa nala yiri soo mara magaalada beledweyn oo iskuulkii loo diray uu ka baaqday maalin ayaa aniga iyo asxaabtayda waxaan u dalxiis tagnay webiga iyo buundada magaalada ee liiqliiqato ma ahayn nin magaalada sii joogay mana ahayn nin markaas magaalada ugu horeysay aad ayaan hareeraha u fiirinayay waxa ka haray saaxiibaday oo dhinaca kale ee webiga u gudbay dhanka hoose ee webiga xoolo ayaa ka cabayay dad ayaa ka dhaansanayay ilmana waa ay ku dabaalanayeen waxaan u soo dhaqaaqay dhinaca saaxiibaday balse hal mar isheedu waxa ay qabatay gabar aad u qurux badan oo timaha u furan yihiin waan la dhaqaaq joogsaday jaaha iyo quruxda gabadha waan la ashqaraaray oo dareen baa isaaqay kaftan iyo hadalla aan macno ku toorarin ayaan ku tuuray anigu hadalba waan awoodi waaye oo waxa ay saaqay dareen gacaltooyo abwaanku waxa uu waraysi ku sheegay inay gabadha geysay gurigooda habeenadii riwaayada la dhigayeen ay safka hore ee riwaayadaha soo fariisatay waxa uu abwaanku carrabaabay inuu qaadan waayo doorkii uu riwaayada ku lahaa guud ahaan abwaanku waxa uu heesta beledweyn ku sawirayaa jacayl ku asiibay magaalada beledweyn abwaanku waxa uu suureysanayaa jacayl si lama filaan ah oo halkaas ku qabsaday dabcan erayada iyo laxanka heestu waxay ahaayeen kuwa si weyn loo farshaxameeyay gabagabada heesta abwaanku waxa uu ku sheegayaa inuu yahay maqana jooge meel jooga misna meel kale la haysto waliba ah nin falan oo waali u dhow abwaan Hadraawi waxa uu si farshaxamaysan ugu dheeraaday sifaynta iyo soocidda gabadha u gacalooday heestuna waxa ay noqotay mid ka mid ah suugaanta ugu caansan guud ahaan geyiga Soomaaliyeed dhalaan iyo odayaalba ay garanayaan